الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد waxaan dhageyna soo jeedinaya aayadaha aynu dhageysanayno ee soo socda Iblis al-la'iin oo Ilaahay hortiisa taagan subhanahu wa ta'ala oo shan jeer buu isku xigsinaya dhaar وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله waxaan ku qaaday buu laaranaya Ilaahay oo adoomahaaga qayb kamid ah inaan goosan doono Ilaahay khaaliq ah buu ku haystaa makhluuqiisi wala udillannahum wa aan bin doona wala umanniyannahum bidii rabbana baan u dhiibi doona wala aamurannahum amar baan siin doona fala yubtikunna adana al-an'am markaasay dhagaha googoyn doonaan xoolaha iyagoo sanamka u calaamadinaya wala aamurannahum amar baan siin doonaa fala yughayirunna khalqa Allah Ilaahay abuurkiisa bedeli doonaa shanta arrimoodba waxaan ku dhaartay inaan ku hirgelin doonaa buu Ilaahay ayuu leeyahay Iblis amaam Allah Ilaahay hortiisa aanu taagan yahay arinta markaa ma dhaafi karna waa inaan wax ka nidhaano Iblis al-la'iin iyo inankiisa shaydaan waxaad arkaysaa inuu Ilaahay aad uga digayo marka uu horeeyo waa nacas qofka aan rumaysan cadaawada Iblis aqliyadiisa qofka waxba u dhiman imika waxa laga yaabaa qofku cid uu ku qanacsan yahay midna madaxweyne oo kale haduu maanta ogeysiis bixiyo oo yiraahdo waxa dadka loo sheegayaa inuu caraw halka ka soo socdo magaalada uu soo gali doono nin istifaaciyo iyo nin caradaba haddaan wax badan sheegin 10 jeer uu idaacada laga sii daayo magaalada cid ma ku haraysa cid kuma harayso lafdu shaytaan quraanka wuxuu ku soo arooray 5 jeer lafdu Iblisna 10 jeer buu ku soo arooray waa 9 jeer in ku dhow ayay Ilaahi weynaa ee boqorka ahaa ee aan been xaqiisa loo aanaynin uu inooga digay subhanahu wa ta'ala waa nasiib daro illa rumaysan waayo oo dadka qaar kood ay isdhagamariyaan waxa isweydiin leh maxaa Iblis kala duu macsiyo iyo dambi uu la taagay shaydaan maxaa la inooga qabo waay ama maxaa loo abuuray ama maxaa la inoogu soo daay xigmadu way badan yihiin xigmada ugu muhiimsan waxa weeye dadka in la kala reebo nacaska iyo fariidka iyo fulayga iyo geesiga inay kala haraan hadii ka colaad wadato oo colkaas uu wada faanayo oo afka uu wada taagayo waa in la dagaal galiyaa marka la dagaal galiyo waxa soo baxaya ka fulayga iyo ka geesiga ba kala haraya marka Iblis wax la inagu imtixaaray weey oo dadka lagu tijaabinayo lagu eegayo Ilaahay marka horeba uu sii ogaaye waxa la eegayaa bal qofka bilad mutaystay ee abaalmarin mutaystay ee janno mutaystay iyo ka kale inay kala haraan Iblis al-la'iin ama shaydaanba waxa uu ku hubaysan yahay khub ay haboon tahay inaad ogaato oo runtii uu nagu dagi karayo ka horeeyo weeyaan hubkiisa waxa kamida qudratuhu ala tazayyun wal ighwa waxa awood u leeyahay maskaxdeena inuu maamulo oo uu jahayn karo qofka difaaciisu uu yahay siiba oo waxna uu qurxin karayo wala uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in wuxuu ku dhaaranayaa inuu dadka wax u qurxin doona macnaheedu waxa weeye waxa awood u leeyahay inuu ku qanciyo oo qofka wax ku qanciyo qofku isagoo ismoodayo inuu maskaxdiisa la sheekaysanayo oo maskaxdiisu ay go'aan gaarayso ayaa shawcidan wuxuu la qiimaysaa waa Iblis shaydaan baa wuxuu la qiimaya siba xaaladaha inuu sheegi doono taas waa mid uu ku hubaysan yahay khatar inagu ah mid labaad waxa weeye al-kadhib wal khadi'a been buu leeyahay uu iib geyn karayo oo dadkana uu ka dhaadhicin karayo waayo haddii qof imika aad arkaysaa wax been ku sheego waa qof adiga ka duwan iska fiirsan oranaysa laakiin isaga adiga ismoodaya isagina wax uu ku laqimaya dhibaatada jirta weeye waqasamahuma inni lakuma la min an-nasihin arbu umaray nabi aadam iyo xaawa waxaanu isaga dhigayaa inuu danaynayo waxyaabaha uu ku hubaysan yahay khatarta waxa kamida inuu ina arkayo oo inagu aynaan arkaynin iyadoo arrin kale oo cajiib ah وعدوغاغي خطرت بدنا حدنا أديغا وكو أركيا أدوغنا ما أركيس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه
isaga iyo wuxuu sii dhalay oo dhan way idin arkayaan buu lahayn idinkuna ma arkaysaan marka arrintaas inaynu qofku ka feejignaado aad iyo aad bay muhiim u tahay waxa intaba ka sii daran ikhtiraaquhu lidaatina wuu naga dhex kalluumaysanaya arag la'aantiyo wixii way soo dhaaftay oo bay nagu dhex jiraada xadiidkii saxiixaynka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dam marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay culimmadu leeyihiin inuu qofka maskaxdiisu waxyaabaha ay doonayso ama uu danaynayo ama uu ku fikirayo uu wax ka ogaan karayo sidaa daraaddeed jahayntiisa uu qayb ka yahay qofka siiba qofkan difaaciisu adkayn wuxuu kari karaa cala aliطilaaci calaa shayin min alghayb waxyaabuhu ku hubaysan yahay qaybka waxbuu ka ogaanaya aan badnayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka xusaya malaa'igtu waxyaabaha ay caalamka kore kaga warramayaan ama kaga sheekaysanayaan inuu qayb ka mida soo dhufsanayo kadibna faaliyaha dhulka u jooga ayuu ku soo tuurayaa sidoo kale sbiidka uu ku soconayo iyo orodkiisa iyo ogaanshihiisa intuba way naga duwan yihiin almuhim orodkiisibaa badan meelo dheer buu wax ka arkaya inaan ka arkaynin iyoba imtixaankay ka mid tahay waxyaabahaasoo dhan marka uu ku hubaysan yahay runtii cadowgaasi cadowga intaasoo dhan haysta adigu aanad haysanin ilaahay baa inagu imtixaanay inuu addoonku ka feejignaado weye cadowga lama yaraysan karo oo sidee loo yaraysan karayaa ambiyadii oo ah khalqiga ilaahay kuwii ugu fadliga badnaa ayuu soo weeraray nebi aadam iyo xaawa ayuu soo weeraro jannadii uu bannaanka ka soo dhigay nebi ayuub baa ka cabanaya annii massaniya ashaydaanu binusb ilaahay shaydaan baa dhibi soo gaarsiiyey nebi maxamed buu soo hujuumay calayhi salaatu wasalaam oo la ina cifriid tafallata calaya albaarix xataa amkananii allaahu minh cifriid baa xalayta anoo tukanaya igu soo fakadayoo ilaahay baa gacanta ii geliyo halkaa qowlalka ayaan qabtayoo markaasaan doonayba inaan tiirkaa ku xidho si aroorta carruurta iyo dumarku ay u daawadaan waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa qofka bani aadamka ah inaanu hadh u jiidaynin xaalad walba waa ku soo jahaysan yahay oo xaaladihiisa ka mid ah meel laynagaga madan markaad iminka halkan joogto salaaddii wuu kula joogaa shayaadiinta qayb dhan baa salaada qaabilsan oo qayb baa weysada fasaadinteeda qaabilsan markaad halkan ka baxdo eed suuqa usii socotona nebigu wuxuu leehay calankiisaaba ka taaganba markaynu sii carrownaynu guriga tagnana gurigii wuu kula socda raxan dhan baa kula socota oo sida bahalahoo kale ah oo haddaad bisinka seegto gurigii way galeen haddaad bisinka seegto cashadii bay kula cuneen haddaad bisinka seegto islaantiina way kula wadaageen ila waxa le washaarikum fi lamwaali waalawlaad dad iyo duunyaba la wadaagsadaa lay haddii aad hurudana waa kaa nebigula calayhi salaatu wasalaam qadaadku guntaya calayka leylun tawiil iska hurud salaadi ma dhowe suxuuri ma dhowe iska hurud buu leeyahy meel alla meel uu kaaga maqan yahay marka laga soo bilaabo dhalashada ilaa dhimashada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi qofku markuu dhasho qof waliba shaydaanku jug buu siinayaa wuu gujinayaa markaasuu ilmuhu waqaaq buu odhanayaa nebi ciise iyo hooyadii baa ilaahay ka badbaadiyey markuu qofku sii dhimanayana waa isa soo barbartaagaya isagoo doonaya khaatumada iyo ashahaadada inuu seejiyo khaatumada allah inoo toosiyo waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun ilaahay ka magan gal wakhtigaasoo kale inuu shaydaanku ku soo ag fadhiisto isagoo dhibaatadaa la socda haddii aad isweydiiso talow muxuu bani aadamka ka qaaday ballamihii uu qaaday nebigaa inooga warramay calayhi salaatu wasalaam nisbatu najaax da'iila wa qaliila fi linsaan bani aadamka inta ka najaxday ee ka badbaada way yar tahay marka qiyaamaha la isu yimaado ayaa ilaahay uu leeyay nebi aadam bal carruurtaada soo saar dadkii aad dhashay inta naarta gelaysa ilaahay waa intee buu leeyay kunkiiba hal mooye 999 naarta usoo saar baa la leeyay maxaa ka nabadgalay percentageka nisbada waa imise siiroodaa lagu darayaa wax aad iyo aad u la yaab badan weeye cidda uu ku jahaysan yahay tiradaa uu ka qaadayana waa bani aadamka waxaa markaa xusud mudan inaynu ogaano waddooyinka uu soo maro haddaynu hubkiisii garannay iyo khatarta uu leeyahay waddooyinka uu soo maro waxa kow ka ah cadhada qofku markuu cadhado si dhaba buu la wareegayaa maskaxdiisa siba qofka musaabka ah ee had iyo jeer uu dardaray oo kale marka hebelkan kula hadlaya hebelkii maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay indhuhu casaadeen oo xowlalmariidyadaas karayaan
nin asxaabiya nin kale uu carooday cirkaasu maraya markaa nebigu wuxuu uhi kelmad baan garanayaa haddii uu ku dhawaaqo dhibaatada iyo caladaa uu dareemaya ay ka tegayso acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ninkii caladii halkay ka maraysay waa kii nebiga ku yidhi ma waxaad moodaysaa inaan waalanay ta nebigiibu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka kelmaddaa haddaad dhowr jeer ku celaysa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim 10 jeer wuu kaa degayaa waxaa ku saaran isaguna waa laga yaabaa inuu kaa furmo waxyaabaha uu wadooyinku inoo soo mara waxaa ka mid a dumarka ehelkeenna ah ee ubadkeenna iyo ooryaheenna iyo hablaheenna ee ummaddeenna ka mid ah ayaanu ka dhammaanaynine uu isku dhararinayaa wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam gabadhu marka ay baxdo shaydaanka ayaa qurxiya intuu u baxo oo uu dul baxo ayuu kolba dhan ayuu kaga boodayaa markaa kolkay ragga ag marayso weynays u saarayaa baashan microscope-ka ayuu u saarayaa kolba dhan buu kaga rakibayaa bal dhinacana ka eeg dhinacana ka eeg waa qof halkaa iska socda kii ninaha eegaba kabaradiisu si weyn bay u qabanaysa maxaa keenaya isagaa duldhigaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inuu dumarkii kusoo gabanayo iyadu waaba qof iska wanaagsan oo ilaahay u siciido halkaasay iska socotaa laakiin balaadaasuu ku rakibaya kii nin la odhan jiray wuu ku jeedinayaa waxyaabaha uu markaa wadooyinku soo mara waxaa ka mid a heesaha waxa la yidhaahda heesaha wastafsiz man istatacta minhum bisawtik ilmo bani aadam ciddii aad karto codkaaga ku fasahaadi buu ilahay ciidankaaga lugta iyo ka gaadiidkana ku weerar culamaa u tafsiir waxay leeyihin codka uu shaydaanku ku weerarayo bani aadamka waxa weeyaan heesaha waxaa la yidhahdaa heesaha markaa heestii iyo khamrigii iyo musigii iyo dumarkii inta marka laysku lifaaqo dee waad garanaysaa isagiioo weyn baa dhex boodaya waxyaabaha uu soo mara waxaa ka mid a alcajala degdega marka had iyo jeer qofka ku danaynaya marka wada socotaan gacantuu ku qabtaa wuxuu dha halkan waa goda halkan dhagax baa yaalla ha ku turunturooni qofka cadowgiina intuu xagga dambe kaa maraabu kolba hore ku riixaa si aad kodada uga boodo 2 jeer markuu qofku ku riixada afweyntaad goosanaysa waad dhacaysa marka hawlahaagoo dhan degdegaasuu ku wadaa weliba wixii khayr la si uu ku dhaafiyo nabigu wuxuu leeyahay deganaanshaha arrimaha lagu wadaa ilaahay buu ka yimaadaa waxa degdega la yiraahdaana shaydaanku ka yimaadaa waxyaabuhu inoo soo maraya waxa ka mid ah nisyaanka ilowga maskaxdaada markay dhinaca khayr kala u kacdo qab waxbuu saaraya daradeed ba quraanku meelo badan waxa la yiraahdaa nisyaanka iyo ilowga shaydaanku u tiiriya istahwada calayhim ash-shaytaan fa ansaahum dhikra allah dhikrigi ilaahay buu ilowsiye wama ansaanihu illa ash-shaytaan an adkura shaytaan ba ilowsiyey inaan xusuusto waxa khayr kale fa ansaahu ash-shaytaan dhikra rabbi ayadaha soo dhan waxa ilowgii loo tiirinaya wixii khayr kale ahaa qofku ilaaway shaytaan baa loo tiirinaya waayo waa dariiqadu ku soo hawlgalay waxa kamida waswaaska waa tashuush inkada waxa laga yaabaa marka shaydaanka ka sheekaynayno dadka qaar kood inuu dhagiisa tashuush ku furo si aan sirtiisa loo ogaanin dabeetana qofku ama uu yara baxo ama uu yara seexdo leela isagii baa asraartiisa laga waramaya marka kolka khayr la soo qaado khudbada hadii laga waramayo quraanka hadii la akhriyo tashuush buu ku furaya tashuushkaasi waa wada uu ku soo maray ila cadayna hadii tashuush lagu furo de markay dhagaa uu kala haysto wada dhaqaajinaysa waswaasku waa tashuushkaasi alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas nabi alayhi salatu wassalam ka waramaya wuxuu shaytaanku mid idinka idinka mid abu u imanaya marka wuxuu leeyahay waxaan yaa abuuray man khalaqa hada saadleeda ilaahay oo kan kalena yaa abuuray ilaahay oo kan kalena yaa abuuray ilaahay ilaahayna yaa abuuray booranaya kaar allah kugu rido ilaahayna yaa abuuray kol haduu marayo iska naara buu nabigu halka ku joogsada waa waswaaskii weeyna aqeedadii buu kaaga soo duulay waxa kale uu tilmaamay inuu malaguna limma leeyahay shaydaankuna limma malag waxa uu leeyahay xusuusin wanaagsan shaydaankuna waxa uu leeyahay waswaas weyn oo qofka ku soo tuurayo